Asalaamu calaykum dhammaan bahda Daryeel TV kusoo dhawaada wararkii caalamka iyo gudaha Soomaaliya. Qodobada caawa wararka aad ku daawan doontaan haatan waxaa ka mid ah Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan ku tagi doona dalka Eritrea. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen ayaa doonayay inuu ku maxkamadeeyo magaalada Baydhabo xildhibaano. Ururka Al-Shabaab oo si xun uga jawaabay hadal jeedintii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Japan oo toogasho lagu dilay. Qodobada wararkaasi oo faahfaahsanna waxaad ka daawan doontaan Daryeel TV. Isku soo noqod habboon, warkii oo faahfaahsan waxaad ka daawanaysaan Daryeel TV. Sida hordhaca aad ku maqasheen warkii ugu horeeyay wuxuu ahaa Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho wuxuu ku tagay dalka Turkiga isagoo kulamo la qaatay madaxda dalka Turkiga uu ugu weyn yahay Rajab Tayyip Erdogan. Kadib wuxuu kasii booqday xerada tababarka ee dalka ku taala Turkiga Isbaarta isagoo kulamo kula qaatay dhalinyaradii meesha ku tababaranaysay iyo saraakiisha. Khudbad dhiirigelin halkaas uga soo jeediyay ciidamada ku xareysan Isbaarta isagoo halkaasi ka soo noqday ayaa waxaa la rajeynayaa inuu qorsheynayo inuu safar ugu aadi doono wadanka Eritrea oo ayagana ay ku xareysan yihiin ciidamo gaaraya 5,000 oo askari. ilaa 2 sano ay meesha ku tababaranayeen asoo qorshihiisa ugu weyn uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud inuu dib ugu soo celiyo Soomaaliya ay ka qaataan howlgallada ka socda guud ee looga xoreynayo Al-Shabaab dalka Soomaaliya. Wasiirka Beeraha dalka Kenya oo shaaciyay inay shir wada yeelan doonaan madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo kan Kenya ayagoo ka wada hadli doono fasaxidda qaadka loo fasaxi doono Kenya keenista dalka Soomaaliya iyadoo muddadii ugu dambeysay ee ka xanibnaa keenista qaadka iyagoo ganacsato badan oo Kenyan oo ka shaqeysta qaadka ay ka ololeynayaan ama olole ay u diyaarinayaan in loo fasaxo keenista ay keenayaan qaadka dalka Soomaaliya. Hogaamiyaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen xildhibaano uu doonayay inuu ku maxkamadeeyo magaalada Baydhabo ayaa diiday inay ka soo tagaan magaalada Muqdisho ayagoo diiday inay imaadaan magaalada Baydhabo kadib cabsi ay ka qabaan Lafta Gareen. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud hadalkii ka soo yeeray oo Al-Shabaab caro weyn ku dhaliyay ayaa ay uga jawaabeen si kulul. Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay lacagaha ay ka aruuriyaan Al-Shabaab deegaanada dalka Soomaaliya inay ku caawiyaan ururka Boko Haram iyo Daesh oo ka dagaalama Mozambique iyo dalka Nigeria. Xasan Sheekh Maxamuud oo u haya cadeemo ayaa sheegay in hadda Al-Shabaab uusan la gali doonin wax heshiis ah uu la gali doono dagaal kulul. Shicibka Soomaaliyeed uu talo u jeediyay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu yiri lacagaha ay siinayaan Al-Shabaab ee canshuuraadka ah inay ka joojiyaan qof kasta oo ganacsada ama qaabkay uga qaadaanba Al-Shabaab. Warkii ugu dambeeyay Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Japan Shinzo Abe ayaa waxaa la sheegay maanta oo Jimco ah inuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala gobolka Nara isagoo la sheegay markii la toogtay isagoo isku diyaarinayo ololaha. Kadib qofkii toogtay oo gacan lagu haynin ayaa waxaa xaqiijisay warbaahinta dalka Japan. Geerida Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan ayaa kacdoon gelisay taageerihii kadib markay iskugu soo baxeen iyagoo ka naxsan geerida Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan.